kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeya dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya amar adag uu bixiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan weli ka heligelin qaybo ka mida deegaanada ay sida gaarka ah uga howlgalayaan ciidamada beesha uu kasoo jeeday iyo kuwa dowladda federaalka. dowladda masar waxay bilowday cadaadis weyn oo ay saareyso madaxweyne ruuto si uu u aqbalo in uu dhaqangeliyo qodobadii ay ku heshiiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta. somalilan ma waxay markaan wajahaysaa dhaqdhaqaaqyo al-shabaab maxay ahayd shabakada dilalka qorsheysan geysan jirtay ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka. madaxweyne axmed madoobena wuxuu xabsiga u dhaadhiciyey odayaasha dhaqanka ee beesha harti. waxaan idiin soo gudbin doonaa odayaashaas iyo sababta loo beegsaday halkan ayaad ku daawan doontaa. siciid cabdulaahi dani gacan adag ayuu ula tegayaa cid walbo isku dayeysan ee saameyn ku yeelato doorashada ka qaybsoomaysa deegaanada puntland. gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyana waxa uu tegaya magaalada baydhabo xili laba shir oo iska soo horjeeda ay ka furmayaan muqdisho iyo baydhabo. inta daawateen waa qodobada wararkeena ee daawada kusoo dhow wararkaasi wararka dhammaystiran. subscribe saari janalka sidoo kale follow gare oo share gare page-kana waa ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka wararkeena. ana ku bilowna madaxweyne xasan sheekh maxamuud amar uu bixiyey ayaan weli si rasmiya kaga dhaqangelin deegaano kala duwan oo kamid ah agaga ay ka howlgalayaan ciidanka beesha uu kasoo jeedo madaxweynuhu iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk oo iskaabaya kuwaas oo ka howlgalaya deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa amarkaani waxa uu bixiyey xilli uu ku sugnaa degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe. waxa uuna sheegay in la joogo waqtigii ugu dambeeyey ee la qaadi lahaa tillaabooyin noocaan ah islamarkaana laga hortagi lahaa cid walba oo loo arko inay leedahay khatar siyaasadeed, mid abni iyo sidoo kale mid bulsho oo aan dalka iyo dadkaba u adeegaynin. waxauu madaxweynuhu amar deg dega uu ku bixiyey in gacan adag loola tago shakhsiyaadka la yimid dhaqamada xuxun sida kuwa isbaarooyinka u dhiganaya gaadiidka socdaalka ah ee iskaga gooshaya gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, maadaama gobolada shabeellaha dhexe iyo sidoo kale aagga hiiraan deegaano ka tirsan beeshu ay degto ay noqdeen meelaha waxaa la galayn ka noqday kooxaha isbaarooyinka dhigta ee dadka baada dhibaateeyana dadka musaafirka. madaxweyne xasan ayaa amarkiisan uu sida deg dega u bixiyey islamarkaana ah mid aan haba yaraatee wax dacwada loo soo gudbin karin taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda ayaan weli si rasmiya kaga dhaqangelin qaar ka mid ah dadka iskaga gooshaya gobolada koonfurta ee bartamaha gaar ahaan magaalada muqdisho iyo deegaanada gobolada waqooyi ilaa koonfurta iyo bartamaha dalka ayaa waxay sheegeen in ay la kulmeen isbaarooyin iyo jidkooyooyin dhowr ah oo yaalla aagag ay ka howlgalayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo lacago badan looga qaado. sidoo kalena waxay dadka qaarkood ay farta ku fiiqayaan mas-uuliyiin barbar taagneyd xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud amarkaasi uu bixinayay inay yihiin kuwa isbaarooyinku ay u yaaleen. mas-uuliyiin iskugu jirta heer dowlad goboleed iyo sidoo kale heer gobol ayaa qeyb ka isbaarooyinka yaalla gobolka shabeellaha dhexe, waana garanaynaa magacyadooda ayuu yiri mid ka mid a dadka musaafirka ah oo la hadlay dhambaalka wararka. waxauna sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga doonayo inuu si rasmiya u hirgeliyo tillaabooyin sharci oo lagu beegsan karo shakhsiyaadkaasi isagoo loo soo jeediyey in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay si deg dega u qaadato amaradiisa islamarkaana uu amar faro in ay gacan adag ula tagto cid walba oo loo arko in ay tahay midda dhibaatooyinka geysanaysa. dowladda masar ayaa madaxweyne ruuto waxa ay ku cadaadineysaa inuu si deg dega u furo dibna ugu howlgeliyo wadahadaladii iyo heshiisyadii ay hore wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale kenya kuwaas oo ku heshiiyey arrimo ay ka mid yihiin in sare loo qaado iskaashiga dhinacyada socdaalka iyo bulsho ahaanba, iyadoo weliba madaxweynaha dalka masar genaraal cabdifataax al siisi uu u xil saaray wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirkiisa dalka etoobiya waa dalka kenya inay si deg dega ay uga howlgalaan arrintaasi iyagoo dib u soo celinaya xiriirkii saaxiibtinimo ee soomaaliya iyo sidoo kale kenya. wixii ka dambeeyey markii xukuumadda william ruuto ay hoos u dhigtay dhaqangelinta iyo sidoo kale ixtiraamida qodobadii ay ku heshiiyeen madaxweynihii hore ee dalka kenya uhuru kenyatta iyo xasan sheekh maxamuud kuwaasoo dhigayay in labada dowladood ay yeeshaan isku socod xora iyo sidoo kale in ay yeeshaan isku socod ganacsi oo toos ah oo la wadaago kheyraadka iyo sidoo kale dhaqaalaha kala duwan ee kasoo xaroon kara ilaha dakhliga labada dal.
waxaase madaxweyne William Ruto ay xukuumaddiisu ku gacan sayrtay arrintaasi iyadoo xirtay xitaa socdaalkii labada dal gaar ahaan dhaqdhaqaaqii dadka ee ka imaanayay dhinaca Soomaaliya. waxaa arrintaasi ka jawaab celisay xukuumadda Masar oo dadaal xoogan ku bixisay sidii labada dowladood ay dib ugu furi lahaayeen wada hadal iyo sidii loo dhaqangelin lahaa heshiisyadii horey loo gaaray. arrinta ugu muhiimsan ee ay ka leedahay dowladda Masar ayaa ah in dowladda Masar ay labada dalba u aragto inay istiraatiijiyad dhinaca badweynta Hindiya ay leeyihiin, sidaa daraaddeedna waxay ku adkeysanaysaa saaxiibtinimada Kenya iyo Soomaaliya. xukuumadda Somalilan ayaa ku dhawaaqday in ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen shabakad ka dambeysay dilal qorsheysan oo gaadmo ah oo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan Somalilan, gaar ahaan mid ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee Somalilan. ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen shabakad ku howlanayd oo fulin jirtay weeraro argagixiso, kuwaas oo laga hortagay islamarkaana lasoo afjaray inta badan dhagartooda. sida ay sheegayaan taliska ciidanka booliiska ee magaalada Laascaanood ayaa lagu qabtay shabakadan dilalka qorsheysan iyo falalka argagixiso maleegaysay, waxayna taasi muujinaysaa in shabaab ay markaan usoo jeesatay inay dilal iyo dhibaatooyin ay ka geysato deegaanada Somalilan sida ay sheegeen talisku. waxayna sheegeen in weeraradaas argagixiso ay yihiin kuwo la fashiliyay intooda badan, maadaama gacanta lagu dhigay shakhsiyaadkii fulin jiray iyo kuwii diyaarinayay in ay fuliyaan, kuwaasoo xilligan hadda wixii ka dambeeya gacanta ciidamada iyo sharciga baaqi ku ahaan doona. magaalada Laascaanood ayaa lagu dilay dadyo kala duwan oo qaarkood ay la shaqeynayeen Somalilan xukuumadeeda, halka kuwo kalena ay ahaayeen mas-uuliyiin dadka deegaanka. madaxweyne Axmed Madoobe ayaa xabsiga u dhaadhiciyay qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee beesha Harti, kuwaas oo loo haysto fal dambiyeedyo kala duwan sida lagu sheegay waraan ka soo xiganay hay-adaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. odayaasha dhaqanka Harti ee la xiray ayaa waxay iskugu jiraan Ugaas Axmed, Ugaas Siraad, Ugaas Boor iyo sidoo kale Nabadoon Cabdullaahi Bile Siciid iyo Nabadoon Cabdi Barre Maxamed, waxayna ku xiran yihiin odayaashaasi xabsiga ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. odayaashan oo hal beel ka soo jeeda ayaa waxaa la xaqiijiyay in Ugaaska iyo sidoo kale labada nabadoon ee kala ah Barre Ashuun iyo Cabdullaahi Cabdi Siciid intuba inay tageen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe kadib markii ganacsato deegaankooda iyo beeshooda ka soo jeeda ay ku xirmeen islamarkaana ku xayirmeen degmadaasi, iyadoo weliba shabaab lagu eedeeyay in ganacsatadaasi ayagoo ay xireen. taasi waxay sababtay in odayaasha dhaqanku ay la kulmaan xarig degdeg ah, islamarkaana amarkiisa uu bixiyey hogaanka nabadgelyada ee magaalada Kismaayo oo ka amar qaadanaya madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, kaasoo la sheegay inuu si degdeg ugu wargeliyay in odayaashaasi xabsiga loo dhaadhiciyo. waxay muddo 3 maalin ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, sida ay noo xaqiijiyeen ilo kala duwan oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. odayaashani waxay galeen dambi caalami ah oo u mudan in lagu ciqaabo. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa gacan adag ula tagay cid walba isku dayaysa inay faragelin ku sameyso doorashada ka qabsoomaysa deegaanadiisa, taasoo la filayo in ay noqoto doorashadii ugu ballaarnayd ee degmooyin ay dadku codkooda ku dooranayaan golayaasha deegaanka. sida ay ka walwal qabaan mas-uuliyiinta hay-adda ururada aan dowliga ahayn ee Bunsa, waxaa walwal badan laga qabaa in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu afduubto doorashada dalada ururada aan dowliga ahayn iyo sidoo kale guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada arrimaha doorashadeeda la xiriira iyo doorashada degmooyinka oo madaxweynuhu u muuqdo mid si gaar ah u doonaya in uu gacan marooqsado. sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiintu, waxaa walwal badan laga qabaa in arrintaasi ay noqoto mid gacanta ka saarta gedi socodka doorashada iyo hanaankii la filayay in lagu wajaho, iyadoo weliba walwal gaar ay ka qabaan intani ay noqon karto mid saameyn gaara ku yeelata howlaha doorashooyinka kala duwan.
ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa tagaya magaalada Baydhabo si uu u furo shirka wada tashiga ee ay iskugu imaanayaan mas'uuliyiinta heer dowlad goboleed iyo heer federaal ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya balse dhinaca Baydhabo marka laga soo tago magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya dadaalo lagu furayo shir kale oo dib u heshiisiineed isla markaana ay hogaaminayaan siyaasiyiin aragti ahaan ka soo horjeeda gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe iyo sidoo kale madaxweyne Lafta Gareen intaba Lafta Gareen ayaa horey u diiday in Muqdisho lagu qabto shirka wada tashiga iyo sidoo kale dib u heshiisiinta balse kaasi ma ay dhicin oo waxaa soconaya dadaalo lagu hirgelinayo shir kale oo ay horboodayaan xubnaha uu ka mid yahay musharaxa gudoomiye baarlamaan Xasan Cabdi Nuur iyo sidoo kale xildhibaano badan oo ka tirsan labada gole ka soo jeeda Koonfur Galbeed isla markaana si gaar ah uga tirsan nabad iyo nolol sida ay noo xaqiijiyeen ma la aqbali doono in muddo kororsi uu hirgalo iyo sidoo kale in bulshada lagu cadaadiyo shir aan miro dhal lahayn oo aanan ka soo bixi doonin natiijo waxtar u leh bulshada iyo deegaanka intaba si walba ahaatee laba shir oo isfeeraysanaysa ayaa la filayaa inay ka kala furmaan Muqdisho iyo sidoo kale Baydhabo iyadoo weliba taasi ay jirto waxaa soconaya dadaalo kale oo xal loogu raadinayo arrimaha jira inta waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaanaya dhabaalka wararka daawade subscribe saara channelka sidoo kale follow gareeyo share gareeyo page-keena waa ku mahadsantahay daawashada la socodka wararkana qaybta hoose aragtida nagu reeb nabadgelyo.